waxaa nasiib darro ah in madaxda qaranku noqdaan kuwa u kiraysan ama u galbadooban dana shisheeye iyo sirdoon ajnabi ah madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka. waxaa xaqiiq ah in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ku shaqeeyaan amarka iyo fariimaha u mariya WhatsApp-ka Fahad Yaasiin oo ah jaajuus ka tirsan sirdoonka dowladda Qatar. waa maxay sababta xukuumadda Khayre u joojisay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab loona furi laayahay waddooyinka halbowlaha ah ee isku xira gobollada dalka iyo caasimadda Muqdisho? maadaama sirdoonka dalka Qatar iyo Fahad Yaasiin ay marnaba raalli ka ahayn la dagaalanka Al-Shabaab, waxaa sii xoogaystay dhaqdhaqaaqa iyo weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan xarumaha muhiimka ah ee hay'adaha federaalka Soomaaliya. iyadoo xukuumadda Khayre culayska ugu weyn saartay shacabka ku nool magaalada Muqdisho loona diiday in ay isku socdaan lagana xiray waddooyinka magaalada, taas oo ay dheer tahay in ciidamo gaar loo samaystay lagu daadshay waddooyinka kuwa oo si aan xandarro ula dhaqma shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir. golaha shacabka oo ah hay-ad ka wakiil ah shacabka Soomaaliyeed lagana sugayay inay u istaagaan u adeegidda sarreynta sharciga iyo danaha qaranka, waxaa laga xirtay albaabadii shaqada qaranka maadaama guddoonku uu noqday mid ay maamusho xukuumadda, taas oo suurtagal ka dhigtay xaqiiqda aan la iska tiri karin oo ah in xukuumadda si indho la'aan ah ugu tumato dastuurka iyo shuruudaha kale ee u degsan dalka, iyadoo wax baqdin ah ka qabin in wax isla xisaabtan ah kala kulanta dhanka baarlamaanka. guddoonka baarlamaanka waxaa maamula Fahad Yaasiin oo u marayo Cabdiweli Ibraahim Muudey, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo ay isku jufo hoose yihiin. Fahad Yaasiin isagoo ugu dhiibo mararka uu doonaya in la luusho xildhibaanada qaar ka mid ah lacagta kaashka ah ee uu ka helo sirdoonka qaranka. sababta ugu weyn ee golaha shacabka loo curyaaminayo ayaa ah iyadoo laga baqayo in baarlamaanku la yimaado la xisaabtan xukuumadda, taas oo ra'iisul wasaare Khayre iyo Fahad Yaasiin ka cabsi qabaan inay ka dhalan karto in xukuumadda Khayre ku weyso kalsoonida golaha shacabka. taasi waa sababta ku kalifaysa ra'iisul wasaare Khayre inuu cadaadis iyo jidgooyo dulligo shacabka ku nool gobolka Banaadir. jidgooyada ciidanka aan sharciga ahayn ee uu samaysto iyo xirnaanshaha iyo curyaaminta shaqada golaha shacabka wuxuu ugu faa'iideysanayaa ra'iisul wasaare Khayre in ay ciriiri gasho dhaqdhaqaaqa xildhibaanada baarlamaanka, siyaasiyiinta wax falanqeeya iyo dadka u dooda xuquuqda bulshada si aanay u soo roobin in lala xisaabtamo xukuumadda xadgudub kasta ha geysatee. waa ayaan darro danaha ummadda Soomaaliyeed ku horgudban. maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed maadaama dana shisheeye iyo dowladaha ajaaniba loo gacangeliyey talada Soomaaliya? waa su'aal jawaabteeda u taal muwaadin walba ee Soomaaliyeed. golaha shacabka waxaa la gudboon inay fahmaan dhagarta kuwa galaya khiyaanada qaran una istaagaan la xisaabtanka iyo wax ka qabashada xaaladan foosha xun ee aan la daawan karin, isla markaasna marnaba aysan ogolaanin in loo adeego dana shisheeye lana dayaco danaha qaranka Soomaaliyeed.